iyadoo ay weli abaar baahsani oo saamaysay dad iyo dunyaba ka taagan tahay deegaanada gobolka Sool ayaa guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool maanta la wareegeen lacago ay dad muxsiniina ka soo ururiyeen dalka dibadiisa sida wadamada UK iyo Australia taas ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool maanta warbaahinta la hadlayay ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay taakulaynta dadkan ay abaaruhu saameeyeen iyagoo sidoo kale faahfaahin ka bixiyay lacagahan maanta soo gaaray abaarna haysata إلهي سبحانه وتعالى نجيب كره هذه أذن وقول مهدين تذكر الله والله وحن الصنيا إلهي مهدي إلهي والله بري يا ربي بقرها خلاص واحد يسوي حن الصنيا وافقها عرورها حنونا وهي محافظة شو بان هركب أمر إلهي باكي بكتين كره شو بان كي هركب قبضان كورح بكان كحالها هي حوري يقول وافنش والله حنوصنا يا والله إلهي بكفر قاعد كروار مالي ما البدء واجفهم ولا لو قادر أيوة أضمها جبان النهاي إله وضعنا أبو ري إله أمة محمد بان صلى الله عليه وسلم إلهي وحنا هايستعدنا قاضي كرتان هذه قاعين ربي ومجرته إلهي أود هذا نقول درجين كرتا إله وقعن بنا هذا كم درجنو إله وقعن بنا هذا وحنا مطرته ربي أود هذا يرساقنا ما إله نقول رساق إله مدر خير قبل النصيب إله مد سود دقان ضاهن النصيب إله مد دنا يديل المد الله النصيب إله مد بركة بدل النصيب الله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي بقى مهد إلهي وحنا وديسنا ونبكي نجا قاضه dadka muslimiinta ana meel joogan bay Ilaahay gargaaro abaaraha iyo colaadaha iyo mashaakilka haysta Ilaahay inuu ka qaado baan weydiisanayna inta kadib waxaan halka maanta rabnaa inaan ku cadeyno adana guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool inayna soo gaadhay deeqihii dadka walaalaha ah ee dibadaha ay soo direen oo ay soo direen dadka walaalahooda ee abaaruhu saameeyeen deeqahaas qayb ka mid ah inaan halka ka cadeyno saxaafadda u sheegno kuwii ugu dambeeyay deeqahaasi waxay naga soo gaareen ilaa hadda ilaa shalay maanta Nairobi wadanka Kenya Denmark Copenhagen iyo Australia haddii aan ku hormaro Nairobi lacagta ay soo direen waa lacag gaaraysa $15,000 lacagtaas oo ay u soo wakiisheen Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Sheekh Cabdinaasirna uu guddiga ku soo wareejiyay shalayto tiradeedu waxay gaaraysaa $15,000 waa lacagta Nairobi Kenya lacagta ay soo direen walaalaha ama jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Denmark yana waa $4,000 lacagtaasna waxa weeye waanu la wareegnay